Mega Star Amitabh Bachchan ayaa ahaan jiray ninkii ugu horeeyay ee loo bixiyay magaca Angry Young Man isagoo sanadihii 70-aadkii iyo 90-aadkii shaashada xanaaq fara badan ka muujin jiray. 90-aadkii waxaa jiray hal atoore oo awood ku haystay 10 sano Bollywoodka, sidoo kalena qaabjilinkiisa cajiibka ahaa awgeed daawadayaasha run ay u malayn jireen ficil ama xanaaq uu muujin jiray darteed. atooraha awoodda iyo kartida badan cid kale ma ahan, waa Dharmendra curudkiisa uu ku faano ee Bollywood action hero Sunny Deol. intii uu ku guda jiray xirfadiisa shaqada filimada, hal mar ayuu dadka oo dhan ka yaabsaday isagoo ficil run ah sameeyay, maadaama ficil been ah awalba la sameynayay. waxay ahayd xilli la duubayay filimka Dar, waxaana filimkan wada jilayay Sunny Deol, Shah Rukh Khan iyo Juhi Jalwa. waana filimka ay ku xifaaltamaan Shah Rukh Khan oo markaasi magacdoon ahaa iyo Sunny Deol oo xilligaasi superstar weyn ahaa. Rajat Sharma ninka lagu magacaabo wuxuu hadda ka hor Sunny Deol ku casuumay showgiisa Aapkidi Adalat, wuxuuna Sunny Deol weydiiyey su'aalo fara badan. su'aalihii Sunny la weydiiyey waxaa ka mid ahaa su'aal ah xanaaqiisa, khaasatan markuu filimka Dar duubayay. xanaaqii uu xanaaqay sidoo kale waxaa ku kalifay in uu jeexo jeemiskiisa. Sunny Deol oo soo xasuustay waayahaas isagoo qoslaya waxa uu yiri, waqtiyada qaar xilliga aad duubayso filimada waxaa jira waxyaabo qaarkood oo ay adag tahay in aad qaadato ama aad rumayso. haddana aniga inkastoo aysan wanaagsaneyn in aan ka ficil celiyo waxa dhacay, haddana nafsadeyda kuma aanan qancin xilligaas wixii aan indhahayga ku arkay oo iga xanaajiyay. waxaan xusuustaa dhacdadii filimka Dar waxay ahayd xilli aan muuqaal la duubayay Shah Rukh Khan. muuqaalkaas oo ahaa mid uu Shah Rukh Khan toorey ama mindi gelinayo, anna aan iska taaganahay. aniga shakhsi ahaan waxaan ahay qof tababar commandos soo maray, marka sidee wiil yar uu mindi gelinaya anna aan iska taaganahay oo aan u jeedo haddii anoo mashquulsan ama qof kale ila dagaalayo uu i gaadi lahaa caadi ayay ahaan lahayd, balse anoo u jeedo waan qaadan waayay. balse anigoo tixgelinayo sharaf weynna u hayo mudane Yash Chopra, waxaan qaatay in la ii geliyo tooreyda anoo iska taagan, ileen waxaan sameeyo ma aqaane. sidaas awgeed aad baan u xanaaqay, gacmahayga ayaan jeebaha jeemiska gashtay xanaaq awgiis. waxaan is arkay anigoo jeemiskiga soo goostay. dadkii goobta joogay waxay bilaabeen in ay kala ordaan cabsi awgeed, anna maba aan is ogeynba qaladka aan galayo xilligaas. wale maalin bay ahayd. Sunny Deol sheekadan ku aadan filimka Dar ee xanaaqa uu u jeexay jeemiskiisa waxay ahayd mid uu ku kalifay Shah Rukh Khan, waana dhacdo taariikhi ah oo la wada og yahay innaba aan caadi ahayn Bollywood action hero Sunny Deol ay ku dhacday. daawadayaal intaas ayaynu barnaamijkeena kusoo gabagabaynaynaa.